maxaynu u jecelnahay kubadda cagta? waa su'aal uu ku weydiinayo qofkaan kubadda jeclayn ama taageero wahayn. waxa ku dhacaya maxaad ugu wareersan tahay ama ugu waalan tahay kubaddan yar ee la laalaadayo. mar ayaa la weydiiyey tababarihii hore ee dalka Scotland ayaa lagu dhahay kubaddu ma nolol iyo geeri ayay la micno tahay. waxaanu ku jawaabay ma intaas way ka muhiimsan tahay oo way ka micno weyntahay. waa darin yar oo cajiib ah oo aadamu fahmayn. laakiin jacaylaanu jecelnahay kubadda miyaanu gaadhsiin heer aynu hurdada ka tagno, heer aynu la socono maalin kasta dhaqdhaqaaqeeda, heer aan wareysigeena la socono iyo dadka la bedelanayo iyo dadka la kala iibsanayo, iyo heer aan gaadhno ilaa aanu dhahno annaga ayaa badanay, annaga ayaa championka qaadnay. miyaadan gaadhin heer ay kooxdaadu ciyaarayso marka kubadda uu erinayo nin ka mid ah ciyaartooydaasu aad ismoodin aad kubadda erinaysid ood garoonka ku jirtidba. markay farxaanna waad la farxaysaa, markay murugoodana waad la murugoonaysaa. kubadda cagtu waa wax midaya caalamka oo dhan, waana luqadooda fahmi karo, xitaa kan dowlaha waa fahmi karaa. kubaddu waa meesha ku wada kulmaan dad kala jinsi ah, kala diin ah iyo kala dhaqan ahba. waana meel aad ku dareemi karto dareemaha oo dhan sida farxad iyo murugo iyo baqdin iyo warwar iyo noocyada badan ee dareemaha ka mid ah. waa wax walaalka ni kala geen karaa, shisheeyena ni mideyn karaa. waa wax malaayiin ka oohiya, malaayiinna ka farxiya. 90 minute ee daawanaysa kooxdaada waa muddo yar oo baqdintii iyo warwarkii iyo cadhadii ku haysayba ay kaga baaba'ayso. waana macaanka dhammaaneen eena ku xidhnayn haddana shakhsi iyo waqti iyo xaaladba iyo sidoo kale shayna. marka lagu weydiiyo maxaad kubadda u jeceshaynaa, aadaan isdhibin baad odhanaysaa kubaddu jacayl maaha ee waa nolol. haddaba anigaan ku weydiiye maxaad saasoo dhan kubadda ugu jeceshahay oo ugu waalan tahay? laakiin ugu wax kastoo dhacaya dad ayaa dabada ka soo riixaya, wax kastoo dhaqaaqayana qof ayaa dabada ka soo riixaya. waxaan kaa cadhaysinaya ama kaa farxinaya kubadda maaha ee waa cidda ka dambaysa ee backgroundka dabadiisa ku jirta. daawade in dad kaa duwan oo kaa dhaqan duwan oo kaa shisheeya oo meel fogna kaa jira aad soo dhawaysato, walaalkaagii kula fadhiyana ee ceesha ka soo wada cunteenna waad iska fogeysinna waa midda kaa doonayaan. inaad noqoto qof caalamka u furan oo la aragti ah oo la fikrad ahna waa mid ay kaa doonayaan. inaad noqoto qof mar laga cadhaysin karo marna laga farxin karo oo dareenkiisa lagu ciyaarayo ayaa mid ay kaa doonayaan. inaad noqoto qof ehelkiisa la fadhiya oo maqan jooga ahna waa mid ay kaa rabaan. inaad noqoto qof habeen iyo maalinba ku warwara kubaddaas iyo wax la mid ahba waa mid ay kaa rabaan. inaad noqoto qof aan hami lahayn oo mustaqbalan lahaynna oo kubaddaas ku hadaaqaya waa mid ay kaa rabaan. haddaba waxaas oo dhan maxay u sameynayaan? kaliya waxay u sameynayaan inay noloshada maamulaan. sidoo kale daawada ma ogtahay inay kubadda cagtu tahay 90 daqiiqo, musalsalkuna yahay 30 daqiiqo, filimkuna yahay 130 daqiiqo. haddaba dhalinyartii waxa lagu jeediyey 90 daqiiqo ee ciyaarta ah, hablaheeni iyo dumarkeeni waxa lagu jeediyey 30 daqiiqo ee musalsalka ah. dadkii waaweynaa ee wax ka sugeynana iyagana waxa lagu jeediyey warar been ah oo wax allaali wax ka jira aanay jirin. daawada haddaba raadi oo baadh ciidaas noloshaada ku ciyaaraysa, waad helaysaa ama waad garanaysaa oo laga yaabaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.